بسم الله الرحمن الرحيم. دولة ودنك تركيا ayaa gabi ahaanba dalkooda ka musaafuriyay Maxamed Cabdimajid Jafan oo ah wiil u dhalay agaasimaha guud ee wasaaradda dekedaha ee Puntland. xubno kamid ah qoyska oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in ninkan markii hay'adaha amniga ee dalka Turkiga ay qabteen ay geeyeen saldhig booliis isla markaana boolisku ay hubiyeen kaararkiisa dalka jooga ay una sheegeen inaanan lagu haynin wax eed ah oo ku saabsan xagga sharciyada isla markaana uu xor yahay. waxay iluhu intaas iigu dareen markii uu banaanka saldhigga u soo baxay inay dib u kaxaysteen qoladii hay'adaha amniga kamid ahayd ee markii horeba soo xirtay isla markaana ay la tageen xero ciidan halkaas oo lagu hayay ilaa markii dambe loo tarxiilay dalka Soomaaliya ama loo musaafuriyay aan raahday. haddaba maxaynu ka naqaanaa ninkan? Maxamed Cabdimajid waa wiil u dhalay Cabdimajid Jafan oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda dekedaha Puntland kana mid ah agaasimayaasha ugu waqtiga dheer ee Puntland wasaaradaheeda agaasimayaal guud ka ahaa. abihiis dadka yaqaana waxay ku tilmaamaan nin inta badan iska qunyara socod ah oo aan siyaasadda aad ugu milnayn. ninkan dhalinyarada Maxamed Cabdimajid ayaa isagu wadanka Turkiga ka baranayay oo ku takhasusay maadada political science-ka isagoo wax ku bartay deeq waxbarasho. Maxamed Cabdimajid sanadihii ugu dambeeyay waxa uu ku dhawaa siyaasadda waxaana uu xoghaye u ahaa ama personal assistant madaxweynihii hore ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo uu ku weheliyay safaradii ugu dambeeyay ee uu ku tagay Farmaajo gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan markii madaxweyne Sheekh Shariif iyo madaxweyne Farmaajo ay tageen Garowe. sidoo kale waxa Maxamed Cabdimajid la socday markii madaxweyne Farmaajo uu Muqdisho ku soo laabtay sidaas oo kale lamana oga waxa goonida ah ee dawladda Turkiga ay ka dhex aragtay laakiin wararku intaas waxay ku darayaan in Soomaalida dalka Turkiga gaar ahaan xubno la sheegayo inay si safaaradda uga tirsan yihiin ay ku lug leeyihiin arrintan laakiin wararku ay soo bixi doonaan waxaana la filayaa Maxamed caawa ilaa berrito inuu gaaro dalka Soomaaliya wixii faahfaahin oo ka soo kordhana waynu idin la wadaagayna.